odayaasha dhaqanka mid ka mid ah beelaha degaa gobolka Garbafuul ayaa beeniyay in uu matalo ogaaska dhawaan lagu caleemo saaray magaalada Boosaaso. warkana waxaa magaaladaasi ka soo diray wariyahayaga Cismaan Turaabi. kulan ay isugu yimaadeen beesha Jibriil Cawliyahan ee Suuqroon oo ka dhacay degmada Xaabo oo ka tirsan gobolka Gardafuul ayay kaga soo horjeesteen ogaas Cumar Axmed Saalax oo sheegay inuu yahay isinka beesha. odayaasha dhaqanka iyo guddoonka xigeenka gowaada gobolka Bari Yuusuf Muumin Bide oo saxaafadda la hadlay kulanka kadib ayaa sheegay in ogaas Cumar Axmed Saalax uusan matalin beesha balse beesha uu matalo Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Yaasiin. waa beeninayna anagu waxaan leenahay isim guud waxaan loo ah Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Yaasiin Ali Xasan ninkaasaan ognahay inuu Beeldaaje noo yahay oo aanu mutawaafaqsanahay oo aanu hadii la koriyo maarta arrimaha iyaga oday u ah oo hadii la koriyo maarta yani wuxuu yahay Beeldaaje hayay nin baa maanta halka Boosaaso wuxuu ka sheegay Beeldaaje ma noqon karo uma galmo hadduu Beeldaaje doonayo muxuu calo iyo meeshiisa waqroon deeyin inuu way sidaasaan dawladda Puntland iyo dadka oo dhan u cadeynayna inaan Beeldaaje Yaasiin Beeldaaje aan lahayn aan sagayn Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Yaasiin idinku wuxuu ka mid yahay dadkii soo asaasay Puntland. Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Yaasiin ayaa horta Beeldaaje annaga noo ah iyo inta deegaankan degaba Beeldaaje Albari baa leeyahay waa ninka ku xiga boqorka boqor markii laga yimaado Beeldaaje Albari ayaa lambar 2 ah arinta Beeldaaje waa ka raali gelinayna mar labaad waa ka raali gelinayna bacda inta kadib waxaan halkan ka soo jeedinayaa arintii ka dhacda Boosaaso oo ahayd in wax lagu yeelo Beeldaaje Albari arinta wax ka jira ma jiraanin nabadoono haday leedahay samadoono haday leedahay wax gara haday leedahay uqaal haday leedahay arintaas wax ka jira ma jiraanin waa been abuur hadii dad baa ku shaqaysanaya been abuurkaasna waxaan dadkii wax laga weydiin lahaa oo nabadoonada ahaa waxay joogaaneen gobolka Gardafuul. bishii November 25 ee sanadkan ayaa magaalada Boosaaso lagu caleemo saaray ogaas Cumar Axmed Saalax waxaana goobjoog ka ahaa odayaal ka soo jeeda beesha balse arinta muuqanaysa ayaa ah mid gabi ahaanba looga soo horjeedo caleemo saarka isimka. Cismaan Turaabi, Somsa TV, Boosaaso.